waxaan rabaa maanta inaan go'aan ka gaaro waxaa intaas sano ku jiray oo maaragtay aad u xumaay kullayto ilaahay wuxuu raali ka yahay ma ahayn si kastoo xataa loo dhaho maaragtay qofkaa fankiisa idabuu leeyahay ama ebkii fankiisu saasuu yahay. sanadadii u dambeeyey fanku wuxuu noqday albaab laga baxo, taasoo fanaaniin badan oo caan ay iskaga fadhiisteen fanka. maalmihii ugu dambeeyey waxaa fanka ka hadhay gabadha lagu magacaabo Deeqa Ladan, waxaana ka sii horreeyey fanaaniin badan oo ay ka mid yihiin fanaanka Maxamed Siciid Biike iyo Cabdihani Xaashi Cabdi oo gebi ahaanba fanka iyaguna ka hadhay, waxaana ku soo wehelisay gabadha lagu magacaabo Deeqa Ladan. waxaan rabaa maanta inaan go'aan ka gaaro waxaa intaas sano ku jiray oo maaragtay aad u xumaay kullayto ilaahay wuxuu raali ka yahay ma ahayn si kastoo xataa loo dhaho maaragtay qofkaa fankiisa idabuu leeyahay ama ebkii fankiisu saasuu yahay wuxuu kullayto ilaahay raali ka yahay bataatan ma aha. maanta waxaa rabaa inaan isdii sheego inaan bataatan wixii la dhahayo fan ama ha noqdo fanaannimo aan ku hees aan qaado ama meel aan ka heeso ama maxaan ku rahdaye hees damboon qaado inay bataatan halkaa iiga egaatay oo aan noqdo adigaan idaawanaya aan fanaanka ahayn. alle markuu hanuun kula doono waxa uu kugu soo leexiya waddada xaqa ah, laakiin ma rumaysan tahay inay dadka noocaasa dhaliil u soo jeediya fanaanadda Farxiyo Kabayare oo u soo jeedisay fanaanka Maxamed Siciid Biike oo sheegtay inuu fanaanin badan ka dambeeyay inay fanka ka baxaan, anigana ay soo carabaabay, taasoo ay sheegtay inuu diinta ku soo qaatay. وايد السلام وكبت حاج waxaa iskale fariintan walaalkay Maxamed BK fariin ayaa noo soo dirtay aniga iyo fanaaniin badan oo waliba anigu aan ugu horeeyo fanaaniin badan baad magacyadooda xustay marka waad ku daawaday si fiican aan aragtay u dhageystay fariintaadii walaalkayo waxaa jirta arrin markaad fanka ka bixaysay ayaan hore ka fanka bixaysay arrin waxaa jirta na soo gaartay oo fanaaniintu si hoose isugu sheegayeen laakiin aan wali adiga lagu weydiin qofkii ku weydiin lahayna waa aniga run ahaantii marka maadaama aadan hadda adiga aadan sid caadiga ahayd fanaaniinta ula soo xiriirin laakiin aad jeceshahay inaad shaashadaha iyo TV-da ka soo hadasho waxaanba jeclaystayba oo igala sii fiicnaataba maadaama maanta aad soo hadashay inaan arrintii aan maqlay ee na soo gaartay inaan hadda si public kugu weydiiyo kor nagala socda BK ii gaarsiiya su'aashaas iyo arrintaas waxa ka jira. haddaba maxaa ku kalifay Farxiyo Kabayare in qof toobadda alle u soo noqday ay sidaa u dhaleecayso? haddaba laba midba waa la oran karaa way ku kalifeen inay ka waayi doonto agteeda saaxiibadii fanka kula jiray iyo inay dhaqaale waayi doonto haddii fanka ay ka baxdo iyaduna. daawade waxaan ku xasuusinayaa inay muhiim inoo tahay inaad subscribe noo saarto, asxaabtana la wadaagto, sina sheer garayso sidaan u helo saaxiibo u wanaagsan sida adiga oo kale. waad ku mahadsantahay qofkii fiidiyowgaygaan arka bataatan inuu fiidiyowgayga heestayda uusan YouTube-kiisa ku jirin meel kasta oo ku isticmaalo iyo haddii kaleba baliis waxaa idinka codsanayaa walaashin idinka codsanaysaa inaa bataatan iga tirtirtaan heesayga oo dhan maadaama aniga aan fankii go-aankayga ugu dambeeyay uu yahay aan ka gaaray codsi ayaan wataa qofkii inta fiidiyowgaygaan arko oo YouTube-kiisa heestayda ee kasii isticmaalo ama sii gashto aakhiriyo adduun ma cafiniyo ilaahay baa loo toobadkeelaa ilaahay waa u toobadkeelay hees dambana leeguma oga maalin walbaba waxaan isdhahay israaqadan ilaah baa baxsho fankii hees iyo fan iyo balaayo wixii lacag iga soo geli lahaa ilaahay waxaan ka baryay oo markastana aan ka baryi jiray aan dhihi jiray ilaahayo israaqad meel kaleeta iga sii maantay in aan bataatan aan fankayga soo gabangabeeyey dambana aanan rabin inaan ku soo laabto meel aan ka heesa ama dambe aysan jiri doonin heesna inaan qaado ilaahay baan ka magagalay ilaahay tiidaa i rumeeyo aniga shaydaan waa dagaalanay muddo badan aan dagaalamayna muddada aan dagaalamayna waxa way iga xoog badnaa jiray because wuxuu iga dhaadhici jiray israaqada inaan ka helayo meelaha fanaannimada ah wuxuu iga dhaadhici jiray inaan ahay inaan helayo lacagtaan u baahdo fanaan haddaan ahay oo fanka ah ku jiro ma fahanteen laakiin
marka maskaxdeyda iyo ilaahay aan niyadeeda gashto israaqada ilaahay qofba meel ku siiya intaan haduu ilaahay ugu soo siinaayay maanta niyadeeda waxa ku jirta inuu meel kale ilaahay iga siinaayo adinkaan i daawanaya hadda raydna u daawanayo ayaa isiinayo lacag ma fahanteen every video soo geliya aad daawatiin lacagan ku helaya fanka markuu muxuu ii taraaya nothing wuxuu ii taraaya mala business yaraan sameystay ilaahay i barakeeyo waxyaabo badan aan sameysanayaa fan ma rabo qofkii heesteyda shalay markaan soo galayay waxaa ii geysatay shaydaannimo iyo caqli yaro maanta damoor aad sii weyneynaysid damoor aad sii xumeynaysid waa laga fiican yahay waxaa fiican qofku markasta uu sii weynaana garaadkiisa sii badanayo godkana waad usii dhawaanaysaa dad baa waxay isleeyihin dhallinyaronimada markaad weynaato ka tabadkeen yaa ku og inaad gaaraysid markaa weynaato aniga waxaa idinka baryayaa laba wax waxaa waaye midda koowaad inaad ii duceysaan oo ilaahay iigu duceysaan wax ka qayr qaban fanka inuu isiiyo oo aanad dib dambe ugu soo laaban shaydaan iyo aniga aan meeshaas ku kala joogno fanaannimada kaliya shaydaan maa waxyaaba badanaa shaydaannimada shaydaanku waa aragteen qofaan dambi gelin ma jiro hadda ka bacdina dambi ma gelaayo ma dhahaayo waan gelayaa bilaadan ah laakiin mid ilaahay ii yasiro oo aan ka toobad keeno mar walbaba Allah iiga dhigo midda labaad ina fiidowgayga u sheer gareysan qof walba oo YouTube-kiisa heesteeda ku jirtana aan rabood ku qabataan hadduu u ka bixi waa xitaa Allah ka dhigay YouTube garaaga runta idin sheegaya hadduu ka bixi waa qofkii aakhiriya adduunna macfinayo qofkii heesteeda sii daawado oo sii gashto oo shaqo ka sii raasado oo israaqad ka raasado oo views ka raasado macfinayo anigaan hadda soo idinlama waxaynahay waxa waliba iigu daran halkan waxaan rabaa fariin inaan ugu diro Daahir Cali Sookow Daahir Cabdulla Cali Sookow heesay YouTube-kii ku jiro bataata waana YouTube-ka ku jiro waana bataata ka saartaa hadda ka horna aanu fanka ka bixin oo fanaanimada markaan intaan ka bixin heesii aan madaxayga qaawnaayeen ayaan fariina u qoray waxaan ku yiri iga saar heesaa bataata madaxayga qaawan yahay midda kaleeto qof kasta oo hees aan leeyahay arko inta jecel wanaagayga jecel ee maanta ku faraxsan wadada aan qaaday ee islaamnimadu ay ku jirto waxaan ka codsanayaa bataatan qofkii iga saari waa inaad iga report gareysaan waliba maahane waliba inaad sida aan u cafinayni inaad adikuna u habaartaan oo igu habaartaan inuu wixayga xoog haduu ku haystana xoog Allah ka qaado haddaba waa idin sheegay shalay fanaanimada markaa soo galayay qof aan la sheergareeyay ama dhahay ma jirto maanta fanaanimadeeda aan soo galaya kana sameeyna inta idima aqooni man adikna ima aqooni laakiin maanta way taqaaniin qof kasta oo YouTube-kiisa heesteeda ku jirto waxaan ka codsanayaa inuu ka saaro ama mid hore haato ama mid dambe haato ama waxa haato fiidiyoada kala oo hadalka ee qofka raba qaato fiidiyo hadlay dib ma laha laakiin fiidiyo hees ay music ku jirto oo heesiyo raali kamihi fankana waa iska dhaafay ilaahayna waxaan ka baryayaa mar dambe inuu soo igu celin israaqada ka heli jirna meel fiican ilaahay kale iga siiyo inta codsi iga tahay ma fahanteen aniga iyo shaydaan iyo fisqi iyo dadka meelaha aan soo warmeelahan kiisa intaas oo qofooda madaxayga ku imaanay lacag ku soo galayeen waan wada caweynayni waa wada farxayni laakiin waxaan iskugu imaanayna ma ahayn wax maxaa la yiraahdaa wanaagsan waxaan sameyn karnaa meelaha iskugu imaan karnaa adoon lacag ka bixin adoon lacag maxaan ku raadaa dhiibeen adoon heesayn adoon ciyaarayn meelaha iskugu imaan karnaa waa jirta ku wada sheekaysan karnaa ku wada qaraxaysan karnaa ku wada farxi karnaa oo walaalahayga aan ku wada kulmi karnaa ku wada sheekaysan karnaa dad islaamana dad walaalaanahay laakiin no more martaba ma dhacayso mana dhici doonto inaan meel dambe ka heeso ilaahayna ka maga galay ilaahayna waxaan ka rajeynayaa sida fanaaniinta hore inta fanka ka bixi ku soo laabtay inaanan noqon niyadeedana maanta kuma jirto mana geli doono shaydaanka inta ilaahayna ha iga haay ii soo duceeyo bedel qayr qaba ayaan rabaa fanaaniinta kale ee ku jirana waxaan u sheegayaa maanta waa noo shahay bir waa dhimanaysaa